waxbaa koos gareeyay in waxaan inuu buugan qoro kadib wixii markuu factories ku yimaado oo inay buug uu sameeyo buug wuxuu sameeyaa wuxuu ka fakeraa sidee baad buugan u qori lahayd waqtigee baad geli lahayd goormaad waxa weeye aaladu ku qori lahaa buu ka fakeraa kadib markuu aaladaasi waxaas u soo helo wuxuu ka fakeraa buugan waqti sida macnaheedu uu soo saari lahaa wuxuu qiimeeyaa jeebkiisa maxaad lacag haysataa jeebkiisa markuu qiimeyn ku sameeyo sababtoo ah mabdacada u daabacaysa isaga buuga lacag ay ka rabtaa soo maaha bilaash ma wax la iskugu duubaa وماي لسكما سمايو wuxuu ka fakarayaa marka mabdacadan uu ka soo saarayo lacag intee leeg bay ku qaadanaysaa marka jeebkiisu qiimeyn ku sameeynaya jeebkiisa markuu qiimeyn ku sameeyo hadii uu jeebkiisu uusan bixi karin buugan uu soo bandhigayo wuxuu eegaa cid kale oo marka uu la kaashan karo hadii ay waari tahay ama cid kale marka ku maalgelinaysa dalkeena miyay jirtaa meel cid oo raasa dhalinyarada wax qorto dhan dhamaan waa maalgelinana waa may soo maaha markuu inta soo qiimeeyo buuga uu taga uu gudbiyaa waa loo daabacaa kadibna sidee wuxuu sameeynaya transparency buu sameeynaya wuxuu gudbinayaa movement buu sameeynaya wuxuu maraya gobolku marka ka soo saaray inuu isku soo bandhigo soo tago gobolka la tago transit buu sameeynaya lacag ka baxaysa hadduu diyaaradu soo raacaya baabuur soo raacaya boorar uu sameysana qarash badan baa soo galaya qofkii kadib muxuu isagu inta u soo socdaa wuxuu socdaa fikirkan uu haysto fikirkan uu buugan ku jira inuu ummadii uga faa'iideeyo dadka uu gudbiyo marka marka intaas uu sameeyo inaga marka wuxuu sameeyaa dadkii wixii inuu la wadaago marka hoolkan oo kala la sameeyaa bandhigan oo kala dhaca bandhigan oo kale markuu dhaco dadkii ka soo qayb galaya dadka la invite gareeya dadka marka la invite gareeyo oo ay dadkii hoolkii yimaadaan maxaa loo baahan yahay marka door maxaa marka halka ka soo baxaya maxaa loo baahan yahay kow qoraaga waxa lagu dhiirigeli karaa horta in la dhageysto in qofkii waxa weeye dhageysi loo dhagta loo raariciyo muxuu wada message-kan xambaarsan yahay muxuu yahay waa looga soo qayb galaya dhagta loo raaricinaya wala dhageysanaya wixii baa la fahmaya wixii marka la fahmo oo message-kii uu intaas oo dhan oo rafaada u soo marayay marka la fahmo oo la dhageysto xagee loo gudbaya markan waa audio visual qaybta reading-ka loo gudbaya buug baa lagu dareeraya buuga la qaadanaya because isaga waxa kaga soo baxay juhdi fara badan lacag uu soo galiyay mabdacad buu ka soo saaray taxi buu la soo raacay waxa waaye diyaaradu la soo raacay haduu doono soo maaha maxaa weeye buuga waa in la gataa marka oo buuga qoraaga meesha la tagaa la soo gataa buugi markii la gato waa in la akhriyaa buugi kadib marka la akhriyo waa in feedback lagu soo celiyaa oo la dhaha qoraagi buugi aad soo saartay sidan waxa tuducyada noocaas aan soo akhrinay muhiimadda noocaas ay xambaarsanayeen qoraagi marka waa in jawaab dib loogu celiyaa dhaha buugaasi muhiimad weyn bulshada u lahaa dad markaas wuxuu noqonaysaa qoraaga dhiirigelin buu ka helayaa waxa ugu weyn oo qoraagu dhiirigelinta ku helaan waxa weeye in wixii uu qoray intii la akhriyo la fahmo in la muraajaceeyo in isaga dib loogu soo celiyo oo la dhaho buugii nuquladu ka koobnaa wixii inta loo akhriyo dib loogu celiyo taasna waxa ugu weyn oo dhiirigelinta ka helana haddaba inaga bulsho ahaan waxaan u baahannahay in aad dadku ay qoraalka iyo akhriska ay sameeyaan maxaa weeye meel hoose baynu ka joognaa inaga dunida waa fahmaysaa Soomaa waxa la dhahaa Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada saaqiday ya waa wadamada saaqiday wadamada ka sii dambeeya Soomaa inaga marka sidee baynu uga kacnaa doorka inta leeg maxay juhdi aynu bixinaa dhalinyarteena maxaa looga baahan yahay sidee baynu meeshan uga ruqaansanaa si aynu adduunka bal dawladaha dunida labaad ta koowaad sidee u gaari karnaa waa inaan higsiga halka aynu ku taxnaa oo la saanood waxay ahaayeen dad u diyaarsan akhriska sidoo kale qoraalka inay sidoo kale qoraalkooda wacna garowe akhriska meel xun baynu ka joognaa annagu hadda naadi akhriska qoraalka nugaad markaynu bandhigyada aynu qabanayno dadka waagaynu hadda bilaabin 2018 bandhigii caalamiga buugaagta garowe ayaynu fikradda naadi akhriska qoraalka nugaad aynu bilownay kadib dadku ma aysan fahansaneen badanaa ma aysan fahmi jirinba markaynu dhahno akhriska qoraal baynu ka sheekeynaa maalin weydaan xildhibaan waxaan ku yidhi buugan suuq geyniyo iibgeyn baan u sameynay marka xildhibaan waxaan ku yidhi buugan uu wacan yahay gado oo soo akhriyo hadhowna filcelinta feedback nagu soo cel wuxuu yidhi niyo Somaliland bayo qooyiga wax laga akhriyay ma xagga gees ku malo Puntland isku wareerin wax laga ma akhriyo filcelinteedii waxay ahayd inaan iraahdo gobolkayga halkan anigu ka soo jeedo aniga ay tahay aniga ay qusaysaa inaan akhriskiisa iyo habkii qoraalkiisa kor u qaado
وادي ما ضلني دمانتين والله قالوا هذا اللي شيء هذا اللي يري واحد ما عندي أرسل وكم هالسنتين إن هذا ما داشن سو حاضرتين قراءة بوجا وبوجادين يا ودير قلنا يا هل كسر نكسر وده قراءة الكيسة هذا هدي قادتان بوجا لجانها وحرتين يهدا لي هذا إن إذا حافظ إذا لجان بدنا ندوان أركي بنجيدا كل كينو قبل إنه حنا ولا ليالو بوجا مركز سو آخر سنة قراءة بفعل علون وحوسمية إن وحكي خدنا أو صعدان سيدو كلا وحاول وجوكر لسان بوجيسا يقرأ الكيسة أدبوا مع سنتين دمانتين ندر شغل الكي بعد ميرس في قراءة قبل كل قال أد بيدين سو سلامي سي سلام بيدي كولا سيدو كلا يجانا ويدي كجرسون دونا وما سنتين balance bari hada mooti ragga dumarka gooti si loo fiiriyo gabdhaha badan waa say farxad in madashan qaaliga ah aad ka soo qayb gashaan buuga noqon mufakar xor ah intaan gudihiisa aan gelin waxaan doonayaa bal hortii inaan kan yarka oo idin hortaagan informationkiisa iyo asal ahaan waa kuma engineer caawiye magacayga waxaa la yidhahdaa Axmed Bashiir Faarax saad xagga ugu jeedaan waxaan ku magac dheerahay caawiye ku magac dheerahay waxaan ahay arday jaamacadeed Buuga ayaan muddo wax ka baranayay waxaan ahay civil engineer iyo project manager intaas kasoo waxaan ahaa dadkii burburkii kadib ku dhashay dhulkii hooyo ku barbaaray waxna ku bartay waxaan ka mid ahaa dadkii taariikhtaasi ka badbaaday waana aadin alxamdulillaah waxaan in badan ku taamayay in bal bulshadeeda wax badan aan ka bedelo runtii isma oran waxaan noqon doontaa qoraal kuma hamin marna niyadii soo gelin laakiin inaan quraan noqdo waxba keenay waxba kalifay soo marka waxaan doonayaa inaan caawa aad ka dhaadhiciyo sababta buugan aan qoray iyo muhiimadda uu xambaarsan yahay dhalinyaradiin buugan wax badan buu anfacayaa galab kamid ah anigoo asxaabteeda injineeradeeda la fadhiya inta badan injineerada waxaan la qaataa time waqti la qaataa maadaama qofba hadduu doctor yahay doctorkiisa mataqaana shaqo kala dhaxayso soo marka aniga injineeradeena si gooni ah baan arrimaheena u xalisanaa galabay ahayd waan soo wada fariisanay waxaan ka doodaynay doorka ay dhalinyaradu ku leeyihiin dib u dhiska dalka badanaa waxaa laga yaabaa ragga injineerada inay intooda badan aad ku taantaan ninka injineerka ah guri buu dhisaa waduu dhisaa wax kasta oo construction ah buu u xiriirsan yahay maxaa door iyo siyaasad iyo arrimahaasi dhex gelinaya laakiin waxaan aaminsanahay injineeradu inay yihiin kuwa ugu dhow oo wax bedela sababta maxaa yeelay ibdaac waaye waa muhandisiin ninka injineerka ah maskaxdiisu aad buu u shaqaynaya sababta keenaysa idin sheegaya intiina ugu badan waxaa laga yaabaa inaad kulliyadaha aad barataan ama waxaad ka dhigataan jaamacadaha ay yihiin kuwa theory u badan laakiin waa dhif qof kulliyad xisaab la xiriirta barta Soomaaliduna baasha xisaabta dhiyado aad bay hortii ugu soo jeedaan oo hadda maanta tiraado wariyo kaaliniyo dugsiga saraad maanta ka qalajibisay maxaad baranaysaa waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho niyo anigu waxaan baranayaa BBA baan baranayaa waayahay wadanku wuxuu u baahan yahay economic dhaqaaliyahan buu u baahan yahay engineer buu u baahan yahay haddaad tiraado niyo ma engineer iska noqotid hay u soo qaadin buu ku leeyahay almaanaha waxaa la tawa yahay anoo dhalinyara inay bidaar gasho soo marka dadku waxay ka aamineen qofku mar haduuba xisaab waxyaalaha la xiriira u barto inayba wareer tahay wax runtii fudud ma ahan balse waxaan aaminsanahay inay tahay wax wadanka wax lagu soo kordhin karo intaas kadib haddaan aad u munaaqashoonay oo aan ka hadalnay doorka ay dhalinyaradu ku leeyihiin dib u dhiska dalka anigu waxaan ahaa gees baan fadhiyey 8 baan ahayn waxaa ii soo baxday inaan hortii
dadkan maxay ku fakaraan maxay tiigsadaan maxay horumar gaaraan maxay ummadda maanta caalamka meesha marayaan ay maanta la tartamaan war ummad qasbul fikri ku jirta oo maskaxdoodii la haysta kuwa badan baa waxay dhahayeen haddaan kaftamo war anagu xor baan nahay maxaa weeye xor really dadku waxa yidhahdaa xor direct ah iyo xor indirect ah dadku marka waxay moodayaan mar haddii guriga uu ka sugtoosayo cuntadiisa cunayo masaajidkiisa aadayo bes intaa kaliya wax baranayo inuu sidaas xor ku yahay laakiin mararka qaarkood waxaa jira waxa yidhahdo xorriyadda maskaxda ah mar kasta oo lagala dagaalamo maskaxdaada waa mar kastoo dabargo uu kugu socdo sidaa darteed waxaan go'aansaday bal dadkan inay horumar gaaraan inay ka muhiimsan tahay inay maskaxdooda ay ka fekeraan so markaas ayaa waxaan go'aansaday inaan buuggan qoro buugga dad badan baa igala soo xiriiray aad buu qanciyey noqo mufakar xor ah marka buuggan markaan qorayay aniga buugaagtan caadiga qoraaga ah meel laga maro ma aqoon waayo buugaag xisaab iyo waxyaalaha sal xiriira iyo baan qorayay iyo mataqaanaa buugaagtan aad iskuma fiicnayn so marka maadaama wixii kugu cusub yahay waxaa u baahan tahay wadiiqadii loo mari lahaa inaad bal waxun ka ogaato waxaa markaasi keentay inaan bal waqti tayman geliyo maadaama waxaan iigu dhashay nin saaxiibo nahay oo aad mataqaanaa mufakar u ah oo sheekh caalim ah oo reer boorama ah badanaa waxaa laga yaabaa inaad magaciisa aad akhriseen laakiin aydan muuqaalkiisa aydan garanayn ismaaciil tugaale cige la yidhaahdo oo badanaa wuxuu turjumaa buugaagtan la yidhaahdo dr ibraahim fiqi isagaan markii hore u tegey anu waxa weeye aad waxa weeye 50 way masuul waaye so marka goobtan u tegey wuxuu yiraahday soo dhow Axmed dhayra baa tahay wali ma aan arag buug la xiriira arrimaha afkaarta aan ka ahayn in dadkan carabta ay wax ka qoraan laakiin qof Soomaaliyeed oo aad uga hadla arrimaha maskaxda xorriyadda ma jirto waa yartahay badanaa dadku maxay ka hadlaan waxyaalo yar ah oo ay u baahan tahay nafta sideed u hiigsataa sideed u gaartaa sideed u hanataa sideed u qaban kartaa waxyaalahaas la mid ah so marka wixii buuggan aad buu muhiim u yahay waxaan ku leeyahay buuggan haddaan rabin aan qoro wadiiqada u mari karaa wadadee so marka aad buu iga saaciday wax badan oo wax badan buu ila fiiliyay marka xil soo naabiyeed waan xasuusaa ka bacdi buugga goortii aan tusmadii buugga aan qoray muhiimadda uu xambaarsanay waxyaalaha aan ka hadlahaa qoray baa muddo dheer kadib goortii adigu laga joogay 8 bilood baan dib ugu noqday anigoo buuggii dhameeyey wax badan aan isdhihi karayo buuggan alxamdulilah ka taabto barnaamijka qaswul fikriga la yiraahdo oo shabaabkeena islaamiga ah inta badan ku socda waa barnaamij aan la iska indhatiri karin caalamka islaami dhammaantiisna ku haya ama aad saameyn ugu yeeshay qaswaadka fikriga ama duulaamada maskaxeed ee lagu soo qaaday dhalinyarada muslimiinta ah waa duulaamo kala duwan mid waxay ka imaanaysaa sahyuuniyada ama yahuudda mid waxay ka timaadaa kristaanitiga mid waxay ka imaanaysaa shiiciyada mid walbana wuxuu ku dadaalayaa fikirkiisa inuu gudbiyo oo u gudbiyo dhalinyarada islaamka si ay uga marin habaabaan wixii loogu talagalay marka waxay adeegsadaan asaaliib fara badan asaaliibta waxa ugu asaasisan oo ugu weyn waxa weeye in muhiimadii dhalinyarada islaamku ay lahayd laga jeediyo muhiimadii ay loogu talagalay inay ka jeediyaan ama ka mashquuliyaan maalintu waxay ka kooban tahay 24 saacadood 24keena saacadood maanta markaan qiimeeyno waxa laga yaabaa inta ugu badan in social media ina ka galo Bandhiga ma jirto daqiiqada aan notification ku soo dhacay aadan sheegarayn taas waa mid ka mid ah ka leexinta ujeedadii aan lahaa loogu talagalay taariikhdii islaamiga in la ka leexiyo taariikhdii islaamku lahaa in tashwiih lagu sameeyo oo aad ka faa'iidi karaysaan qoraalku waxa weeye horta asaasiyaadka ama fundamental functionska aynu maanta qabanayno waxyaalaha ugu muhiimsan ee bulshadeenu ay qabanayso waa qoraal wey waa akhris wey
waxyaalaha kale oo aynu rabno inaynu akhriska uu inoo ka xiran waxaa ka mid a dhammaantiin waxaad tihiin job seekers baa tihiin waxaad raadinaysaan shaqo ma aad helaysid shaqo haddaadan akhrin meel wax lagu soo dejiyey waxaa muhiim ah alqalim waxadu lisaanin marka inaad wax akhriso aad Somali jobs booqato aad laxdaadka yarka aad furayso efta waxbaad akhriyaysaa moogtahay marka isweydii faa'iidadu ma noqonaysaa laxda yar ood wax akhrisay wax ma ku faa'iidi karaa waxa kale ugu muhiimsan waxa weeye akhrisku wuxuu inoo leeyahay develops the mind waa faa'iido waxa weeye maskaxda inuu tanmiyo ku sameeyo faa'iidada waxa akhriska waxa ka mid ah to discover a new thing inaad arrin markaad buug fudhaba waxa la yiraahdaa waxa fudhay adduun cusub iyo shay cusub intaba faa'iidooyinka kale waxa ka mid ah qoraalku inoo sameeyo inaynu qofku tanmiyo ku sameeyo imaginationska waxa la dhaho iyo tasawiraadka haddaad wax akhriso wuxuu baad tasawiraysaa moogtahay ayaba qofku inuu dhinto isagoo faqriya boqorkii hogaaminayay dawladda Cabbaasiyiinta 813 ilaa 833 wuxuu ahaa nin yaani ku tusinaya islaamka xadaarada qoridda meesha ku gaaray wuxuu dhisay daar weyn oo Ciraaq Baghdad ka dhisay oo aad u weyn runtii wuxuu ugu magac daray guriga xigmadda qof kasta oo Carab ah oo islaam ah oo wax qora waxa la siin jiray buuga oo qoray inta miisaan la saaro dahab laag baa siin jiray hadduu rubac noqdo buugisu rubac dahab la siin jiray hadduu kiilo noqdo buugisu kiilo dahab la siin jiray halkaas uu gaaray ma ogtahay ilaa markii dambe Ankara iyo la gaarsiiyay Turkiga iyo Ardubishq waxa la yiri markaa adduunka cilmiga yaal oo dhan waxa weeye waa qoraal dhaxal ah oo la iska dhaxlo oo la qorayay qof kasta oo qoyahana markuu soo gaaro waa sida qori dab ah oo la soo dhiibiyo qof kasta oo qoyahana markuu soo gaaro buugaas qoraalka yaani cilmiga adduunka yaala ayuu asna sii nooleynayay tacliinta uu yaqaan iyo khibradda uu yaqaan ayuu ku sii nooleynayay